ma dareenta walwal badan iyo diiqad badan ma jeceshahay inaad ogaato wax ka yareeyo walwalka ama diiqada badanaa dadku waa kuwa dareema walwal ama diiqad iyagoo dareemaya xilliyo kala duwan harajo dhigin halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 5 qodob oo xal u noqonaya walwalka ama stresska aad dareemayso nasiib darro waxaan wali xal helin qof muuqaalka nala bilaabay oo dhammaystirin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walwalka ama stressku waa jawaab celin si dabiici ah jirku uga bixinayo baahi jirta ama caqabad taagan markaas tusaale ahaan waxa walwalka haysta qaabkii aad u wajihi lahayd shaqadaas aad isla markaas bilowday sidoo kale waxay caqabad ka haysataa dhaqaale xumo iyo isla markaas xiriir aad ku jirtay oo ka xumaaday caadi ahaanta walwalku waxa loo qaybiyaa laba qaybood mid waqti yar ku dhaca isla markaas aad xalka gaadho bartaas ku taga tusaale ahaan imtixaan baad galaysaa waxa walwalku ama stressku ku haynaya xilligaas aad imtixaanka galayso isla markaas uu ku dhamaado imtixaanku halkaas waxa kaaga tagaya walwalkii ku haystay way qaybta labaad ee loo qaybiyo walwalka ama stressku waa mid kugu dhacaya kuna haynaya waqti aad u badan kaas oo laga yaabaa inaad xitaa naftaada ku weyso ka islaam ahaan annagu waxaanu sameynaa markaan marxaladan walwalka la kulanno waxaanu noqonnaa dhanka alle annagoo isla markaas sameynayna inaan salaad tukanno akhrinana kitaabka alle kaas oo inoogu filan daawo dhanka kale markaad eegto waxaan ku hayaa 5 qodob oo ka caawinaya inaad xal u noqdaan stresska ama walwalka ku haya qodobka koobaad exercise regularly samee jimicsi joogto ah jimicsiga joogtada ahi waxa uu qayb weyn ka qaataa inuu hoos u dhigo dheecaamada la soo daayo xilliga qofku stresska dareemayo ama walwalka tusaale ahaan samee socod joogto ah ama yoogo ana kuwa ugu wanaagsan aan isdhihi karo xal ay u noqon karaan walwalka dareemayso qodobka labaad get enough sleep seexo hurdo kugu filan hurdadaada oo wanaagsanaataa waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inuu yaraado stresska ama walwalka ku haysta badi dadku ma seexdaan xilliga ay dareemayaan walwalka se waxa muhiim ah inaad seexato hurdo wanaagsan si ay badbaado kuugu noqoto sidoo kale iska ilaali inaad cabto kafeega iyo cunto badan ka hor intaanad seexan qodobka saddexaad time management waqtigaaga maareynta waqtiga ee xuni waxay ku horseedaa inaad gasho xaalad walwal ama stress haddii aad qabanayso shaqo isku day inaad shaqadaas u kala qaybiso qaab ugu fudud oo aad ku gaari karto hadafkeeda qodobka afraad healthy eating cunto caafimaad leh cunista cuntooyinka caafimaadka leh sida cuntooyinka baalka leh ama khudaartu waxay qayb weyn ka qaataan caafimaadka maskaxda iyo jirka qodobka shanaad limit screen time yaree waqtiga aad wax daawanayso isticmaalka badan ee aad la yeelato mobilkaaga iyo aalad kastoo aad isticmaasho khaasatan ka hor intaanad seexan waxay qayb weyn ka qaataan inaad gasho xaalad stress ama walwal ka hor intaanad seexan waxaa tala ahaan wacan inaad hesho saacad free ah ama xor ah taas oo aad ku diyaarinayso wax walba oo ka caawin kara hurdadaada waad ku mahadsantahay sida quruxda badan aad noola soo joogtay haddii muuqaalkani wax ku taray u sheer garay asxaabtaada iyo cid walba aad isleedahay xaalad walwal ayay ku sugan yihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh